عليكم السلام عقل. إن شاء الله صان بلابنو ها سعيد ولا عاقل آد بان في عنها ولا لا صودو إن شاء الله بلابننا برنامج مردو رالي نقدو يجا قاي مركان بلابدو يجا قاي إن مركا وكسو نقدي بليز in the meantime share قراي بيجيكي نكو share قراي انت انا بلابنين إن لابد دقيقة ادسينا يا او اد اصحابتينا وحي ادكو invite قرين كدان اكو invite قريسان سان وغو وذا فايدي سنو خير إذن جينا إن شاء الله إنسوقيا واشهر قرينا أنا إن شاء الله اسكو دينا اشهر قرينا عدكي كلير مياهي عدكي كلير مياه أصحابتا عاقلو ايغو قسلسو والله بالله سومالو دنا ربان محاري مالد كلي ايغو خرتي ما شاء الله نين اترسيغي قنا مش كجري والله بالله ما ندبي قطوري حسن سودو مهزر أتفول نور ميا مقعاقب خطر نقضي بسنك يا wax badan laga hadlayaa qishso insha Allah fiicana idin wadaa 1 minute kadib waan bilaabaya laakiin ilaa hadda hal qof oo share gareem u jeedi shaarta maxaa ma dambi miya dambi in la share gareeyo ninka dhaareer manadana oo yeeray in adeero maba aad share gareena seereer manad u gartaa حسن ولا الصدو
barnaamij interestna idin hayaa. ciwaanka waad ka garanaysaan. aabo maxaa iga daba qiilinaya, waa ujeedaa ciwaankaaba wax badan sheegaya. kun group ay u share garaysay. maasha allah. kun group ba jirtaa horta. bismillah, hal minute leebu ku jiraa. kun group ma ka gaarsiisay. maasha allah. ay kun kalena ku dar. waxaan sugaa dadka xoogaa inay bataan ilaa iyo kastoo gaaraan. dadku way yar yihiin. aawo reer Soomaaliya, Africa, Europe, dadka North America meelahan waa iska jifjifaan saacadan. laakiin aawa dadkii joogay Soomaaliya, dadkii joogay Europe, dadkii joogay Africa, daas kaleeta Carabaha, dadkay hadda u bilaabatay hawsha meeda. والله يغص لي عاو. one minute هدي له سوق لي هدان السوق اللي بقى وبلابنا 1 minute إيه سمرة إن شاء الله. حسن عبدي ولا صودو وانا كان صودو هذا جامع وحير. انا صدق الله بقول جروب بانكو شير قري ما شاء الله. صودو هذا ميرد وبلابنا ان شاء الله. وبلابنا هل مير بانكو شير قريني يا اوكي. Okay, let me see. reer utaangadii waagi hore aheeda oo dadkeedii ma nool yihiin horta. dadkii utaango waxaan umaleynayay inay raaceen. utaango inay raaceen aan umaleynayay. اوكي ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمة دادا أباهنا ميا. ما شاء الله كل بيسوق قرمة. and anyways let me and بلابنا إن شاء الله. حسن وحيري يا dadka kala baa la shargareeyay and anyways dib ma laha insha Allah wixii Ilaahay ugu talagalo way ka faa'iideysanayaan programka insha Allah aan iska bilaabano. bismillaahir rahmaanir rahiim. bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya wad-diin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصحاب تدمانتين وسلامنتين
waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. allah subxaanahu watacaala ayaa wuxuu leeyahay mahad aada u ballaaran, mahad aan halka kusoo koobi karin. rabbigaas oo noo qadaray inaan jaanis u helno, inaan ku kala faa-iideysano baraha bulshadu ay u badan tahay sida social mediada, facebooka oo hadeertaan livekaas dad badan ay ka faa-iidaan, dad badana ay ku khasaareen oo meel kaleeta ay ka tuureen runtii. marka fikrado yaryaroo muhiima ayaan hayaa. waxaa jirtay ayaamahan oo dhan inaan idinla sheergarin jiray qisooyin kala duwan oo runtii wax ku ool ah. qisooyinkaas waxaa la igaga codsaday, xala hadda maana soo gelin, taleefonkayga muu demin, dad baa waxay ku hayaan qiso kala keen, sheekada waa ka helnay, sheekooyin fiican waaye, sheekooyin aan wax ka fahanay waaye, oo wax ku ool ah, oo xigmado badan noo siyaadiyay, oo qalbiga noo furay, oo maxay ahayd dardar geliyay waxyaalo badan oo wanaaga inaanu sameyno. marka sidaas darteed waxaan kaa dalbanaynaa inaad in aad noo soo badisid. marka sidaas darteed waxaan helay janis xoogaa in aan atleast hal sheeko kaleeto aan idinla sheergareeyo. shiina yaasin, wacalaykum assalaam walaalo, soo dhawow. jaamac cumar soo dhawow, shiino soo dhawow, kulligiin soo dhawaada. naasir caddaa ku jira, soo dhawow walaalo. xasan faarax, kulligiin soo dhawaada. ilaahay kheyr ha idin siiyaan, ku kala faa-iideysanay. ubax jaamac, soo dhawow abaayo. marka qisada aan idinkaga dhaco, habeen hore waxaan ka sheekeeyay qiso oday waayeel ah oo 80 jir ah oo ammaan laga waayay. dadki ilaahay afkiisu ammaan ay ka waayeen ayaan ka sheekeeyay. runtii qisadaas xalay basaa kasoo wareegatay, almost 10 kun oo qof baa dhig fiirsatay, wayna socotaa. dadkuna waxay u arkeen in ay wax badan, yacni caqli iyo maskax iyo qofku bini aadanka wuxuu u baahan yahay noloshaan wadankan iyo waqtigan aanu joogno. waxaanu ku jirnaa orod, waxaan ku jirnaa in aanu lifekeenii aan la yaabanahay. dadka dibadaha joogo kaleeto 12 maalintii shaqay ku jiraan, 12 habeenkii qaar baa shaqeynaya, biilal iyo orod iyo baraf iyo nolol ciriirihay ku jiraan runtii, oo dadka wadankii jooga aysan dareensaneen nolosha dhibka ay tahay. dadka dibadda jooga ayaa garanaya. marka waxaasoo dhan waxay qofka u diidaysaa inuu u helo maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo shucuurtiisa iyo dhinaca tayada aqoon ahaaneed, inuu qofku uu ka gaabiyo waxyaalo badan oo hadduu waqti haysan lahaa uu sameyn lahaa. siyaasad ka hadalbaa. anyways, marka maadaama marka taas ay dhacday, waxaa marka lagama maarmaan ah oo loo baahan yahay in la helo dad waqtigooda, haddii ay dadka wax dheer yihiin, aqoon noocay rabta ha ahaato, inay saacad ka mid ah ama 2 saac oo ka mid ah usbuucii ay siiyaan si ay uga faa-iideeyeen dadka walaalahooda, ayaguna ay uga faa-iidaan. anigu faa-iidooyin badan baan ku arkay intii aan bilaabo hadda barnaamijta inaan la sheergareeyo. dad badan baa waxay iisoo gudbiyeen sheekooyin runtii aniga laftarkaygu aan u baahnaa. fikrado badan oo kala duwan meela iga tusay. dadka wanaaga jecel waa isjiitaan, way soo jiitaan. dad badan oo wanaag jecel, oo kheyr ka shaqeeya, oo jecel inay horumar sameeyaanna waad isbaranaysaa. asxaabta qeybta adigu aad u badan tahay, haddii aad u badan tahay dadka meelaha ka foorjeeya oo social mediada power ka dhigtay, oo qofka dadka ceebahooda baaro, oo dadka haddii aad ka mid noqotona iyagoo kaleetaa ilaahay kugu mashquulinaya. haddii aad ka mid noqoto dadka wanaaga u sheega, oo waxa danta aan ugu jirin ka ilaaliyay, dadka haddaa ka mid noqotona dadkaas ilaahay kuu badinaya. marka
waa aljazaau alixsaani ila alixsaan axsaanka aada dhiibato ayaad helaysaa marka qisadii sidaas ahayd caawa qisadan waa qiso ka duwan runtii waxayna ku saabsan tahay wiil yar oo 6 sano jira iyo aabihiis ayay ku saabsan tahay wiilkan yarka ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabihiis waday wuxuu yidhi inakeen waa israaceynaa maanta way israaceen jidkii marka gurigooda marka waxaa u dhow buuro ayaa u dhowaa buuro yaryar iyo hills waxa la yirahdo helaha maxaa la dhahaa Soomaaliya maxaa lagu dhahaa togag miya arano waxaas camal ah u dhowaa geedo badan meel jiqana way deganaayeen wiilkii iyo odaygii markay israaceen oo ay gurigii ka baxeen oo ay cabaar socdeen ayuu wiilkii yaraa markii ay hawd ka dhex marayaan ayuu kufay wiilkii yaraa markii uu kufay wuxuu yidhi marka ouch waa taqaandii ouch ama oo kale ayuu yidhi markii uu kufay looga ayuu dhulku dhuftay looga xanuun marka ayuu dhahay marka uu qayliyay wiilkii oo uu damcay inuu ooyo ayuu wuxuu maqlay codkiisii oo sidiisii oo kaleeta ah oo intii uu yiri haddana dhahaya markuu dhahay wuxuu maqlay wax ka daba dhahay oohintii markuu damcay inuu ooyo oo oohintii bilaabay oohintii oo kale uu maqlay asagii marka yaaban ayuu aabihii kusoo jeestay wuxuu yidhi aabe maxaa waay waxa iga daba qaylinaya yacni qisada taydalka waxaan ku keena waay odaygu umuu jawaabin hadalkii uu yiri buu haddana stiil ku hadlay marka uu ku hadlay ayaa waxaa soo booday wiilkii ayaa intuu soo booday oo cirka fiiriyey oo toogii fiiriyey ayuu wuxuu yidhi you are stupid waxaa tahay stupid ayuu yiri kor u yiri wuxuu u malaynayaa qof caadi inuu la hadlayo ilaa waxa uu maqlay waa codkiisiyo sidii ee moogta markii uu yiri cunugii wixii haddana waxay ka daba dhaheen you are stupid ayay ka daba dhaheen wuu yaabay markaasuu wuxuu yiri intii markuu maqlay oo haddana laga daba yiri ayuu cunugii aabihii soo fiiriyey isagoo yaaban oo dhahaya waxaan iga daba qaylinaya oo wixii aan dhahaba iga daba dhahaya maxay yihiin odaygii markii intaa wuu fiirsanaya cunugii yaraa umuu jawaabin siciid yare wuxuu yidhi goormaad seexanaysaa goorta adigu seexataa ana seexanaya astaqfirullah alcadiim su-aal waalan waayo anyways casharka ka faa-ideysa walaalo ku kala faa-iideysana casharka insha allah cunugii marka asoo ciilahaayo ayuu aabihi wuxuu ku yidhi aabe waxaan ii sheeg waa iga daba qaylinaya odaygu wuxuu yidhi aabe attentionkaaga soo jeedi dhegayso waxa aan sheegaya dhegayso markaasuu odaygii intuu qeeliyey ayuu wuxuu yidhi you are very nice wiilku isaga bisaa isu qabay ereygii wuu baxay wuxuu ka daba yiri you are very nice ayaa wixii ka daba dhaheen markaasuu odaygu wuxuu yidhi thank you wixii baa haddana wixii ka daba yirahdeen thank you cunug yarkaa marka waa 6 jir u dhegaysanayaa waxaa dhacay marka wiilkii odaygii ayuu wuxuu ka jawaab ka rabaa markaasuu intuu kusoo jeesto wuxuu ku yidhi aabe maxaa kaaga baxay maxaa fahantay wiilkii wuxuu yidhi may anu weli waxna ma fahmin miya haa okay anaa kaaga jawaabaya waxa marka waxa waaye eco waa cod dadku markay meelaha buuraha ama meelaha hawd ku jiraan oo qofku uu qayliyo
codka ka daba qayliya ekaa la yirahda ama hadalka dhawaaq kaa daba dhacay aragno Soomaali wax lagu dhaho ma aqaano Soomaali wax lagu dhaho ma garanayo laakiin waa echo in English waa echo ayaa la yiraahdaa waxa dhacay marka wiilkii marka odaygu marka wuxuu yiri aabe waxaan kaliya echo ma aha oo hadal iska soo kaal daba dhacay kaliya ma aha waxa waaye noloshaada actionkaaga reflectionkiisii waaye micnaheedu waxa waaye wixii aad gudato wixii aad qabsato ayaa ku soo noqonaya reflectionka hadalkii aad samaysay asoosigiisii kugu soo noqonaya haddii wax wanaagsan aad samayso ayagoo wanaagsan ayay kugu soo noqonayaan haddii wax xun aad samayso ayagoo xun ayay kugu soo noqonayaan marka wixii aad gasho ood geysato ayaad helaysaa xoogaaga wixii aad ku kasbato ayaad helaysaa aqoontaada wixii aad ku kasbato ayaad helaysaa lacagtaada wixii aad ku soo gadato ayaad helaysaa so everything oo aad samayso wanaag iyo khayr shar iyo khayr tilaabo kasta oo aad qaado noloshaada meeshii aad geyso bay tegaysaa haddii anigu intaan baxo badda isku rido dee baddii dhibkeedii baan helayaa haddii intaan baxo jaamacadda ugu sareysa aan Harvard ii galo aqoonteedaan yeelanayaa haddii salaadii iyo soonkii ilaah igu talagalo say ahayna u sameeyo jannaan shaqaysanayaa marka waxa uu odagii yiri aabow waa reflection of your actions waxay u tahay xisaab waayo aragnimo tusaale codka aad maqashay oo kugu soo noqday wuxuu tilaabo u yahay ama tusaale u yahay codkii aad dhiibtay markii aad tiri you are stupid codkaaga yaa kugu soo noqday you are stupid buu adiga kugu yiri laakiin aabihii markuu yiri you are very nice aad baad u fiican tahay codkii uu ku soo noqday wuxuu yiri adiguna waad fiican tahay halkaa marka waxaa ka dhashay dhowr wax ayaa ku jira mid waa asluubta qofka waalidka looga baahan yahay mid waa ilmaha marka aad tababarayso xigmadaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad u isticmaasho si ay cashar ugu noqdaan midna waxa waaye ilmuhu waxay kaa arkaan bay beri ku kacayaan halkaas waxaa ku jira xigmad fog baa ku jirta kow odagii qofka waalidka ah waxaa looga baahan yahay ilmaha yarkaa ah way yar yihiin way korayaan caqligoodu ma dhamaystirna ilmo 6 jira oo kufay oo xanuunsaday oo ciil haaya haddii wax ka daba qeyliyaan oo hadalkiisiyo in la dhaanjinayo u maleynaya ama isaga ma arkin oo hadalkiisii ciyaar laga dhiganayo marka wuu xanaaqay wuu waxa caytamay laakiin odagii maadaama asagu uu yahay waalidkii ilmahana loo baahan yahay inuu siiyo tababar iyo cashar lama ilaawaan ah nasiib waxa uu u yeeshay inuu helo cunugii tusaale uu ku baro tilaabada fiican ee tomorrow ka maalin haddii uu maanta qaado uu ku helayo wanaag iyo sharaf cunugu markuu yiri stupid odagii ma dhihin wuxuu yiri you are very nice micnaheedu waxa waaye ilmaha qaladka markii ay sameeyaan adigu maadaama aad u tahay tusaale u tahay adigu maadaama ay ishaada waxay ka arkaan ay sameynayaan in ay ka arkaan wax wanaagsan hadal wanaagsan inay ka arkaan ilmihii oo markii adiga
cunugii uu yiri you are very nice, ninkii waxa kusoo yiri you're very nice, thank you buu yiri, thank you baa lagu yiri. marka cunugii kow wuxuu bartay inuu haddii uu hadlo, hadduu hadal xun ku hadlo in hadal xun lagula hadlayo, hadduu hadal wanaagsanse ku hadlo hadal wanaagsan oo naxariis leh inuu helayo. taas waxay u siyaadisay cunugii caqli ah, dhib kastoo ku haysta iyo ciil kastoo ku haysta iyo xanuun kastoo ku qabta afkaaga wax wanaagsan ka sheeg. taas wuu ka bartay. wuxuu kaloo bartay oo halkaasoo cashar oo ku jira qofku wixii uu kasbado ayuu helayaa, wixii uu kasbado ayuu helayaa. haddii uu wanaag kasbadana wanaag buu helayaa, haddii uusan wanaag kasbanina wanaag adigu waxay ahaayeen wuxuu kasbada ayuu helayaa. taasoo ah inay tusaale u tahay markuu caytamay waa loo soo jawaabay, ceebaa loogu soo jawaabay. laakiin markii aabihii uusan caytamin wanaag baa loogu soo jawaabay. odayga wuxuu dareemayaa wanaag iyo wuxuu dareemayaa cunugii laakiin ciil baa wuxuu stupid buu yiri ayuu dhahayaa. marka halkaa taayaa ku jirta. casharka kaloo baray waxa waaye meesha uu cunuga intuu uu dharbaaxa ku dhufto dhihi lahaa caytamin maxaa u tiri alla ceeb hadalkaasaa tiri uu ku qaylin lahaa oo cunugii uu sii frustration noqon lahaa, uu sii wareeri lahaa oo ciil sii qaban lahaa oo wax ma barteen cunugu defense buu geli lahaa ama difaac buu geli lahaa because isagii oo xanuunsaday oo kufay oo la caayay ayuu odagina caay ugu sii daray. marka ma fahmayo. sidaas darteed waxaa marka halkaa ka dhalanaya in loo baahan yahay qofka marka aad wax barayso, qofka marka aad wax u sheegayso inaad qofka wacyi degan, jawi degan, munaasabad degan aad wax ugu sheegto. laakiin anagu bilcagsi qofkiioo kulul oo xanaaqsan oo ciil haayo oo xanuun ku dhacay oo dareemaya in la dulmiyey ayaan in public ama ayanagioo joogna ayaan qofkii waxaan ugu jawaabaynaa wax uusan yacni xataa markaas qalbigiisa iyo maskaxdiisa aysan xamili karin ayaa loogu jawaabaya. waxa uu dareemayaa marka qofkaasi dagaal inaad kula jirto ayuu dareemayaa, waxna kaama qaadanayo. laakiin cunugii odagii asagoo waxna sameyn ayuu asagu ku dhawaaqay oo sameeyey tallaabadii uu sameeyey wanaageeda. cunugii asagoon lagu qaylin loo sheegin oo la dhihin saan iyo saan waaye ayaa waxaa lagu baray cashar actions baa lagu baray. marka halkaas waxaa ka dhashay xigmad kale. waxaa kaloo dhashay qofka waalidka ahi inuu la socdo ilmaha uu dhalay wacyiga ay ku sugan yihiin, timekaas waxa ay ku sugan yihiin. ilmuhu ma jiran yihiin, markay jiran yihiin naxariis gaara iyo kaaga baahan yihiin. ilmuhu xanuun miya hayo oo dhib miyay dareemayaan oo hintoodu waa inay ku dhibtaa. ilmuhu ma faraxsan yihiin, maanta ma seexdeen oo wax kastaa u sheegayso ilmaha bareenkoodu waxa uu dareemayo ayaad kula dhaqmaysaa. hadduu dhib dareemayo dhibka uma siyaadinaysid ee waxaad samaynaysaa waad qaboojinaysaa oo dhibka waad ka saaraysaa. ilaah baa ka saari karaa. haddii uu dareemayo cabsi you have to shield them. waa inaad dhigi kartaa anaaba intaasaan la ekahay, halkaana ii joogtaa, anaad iga soo baxda ku dhalay. wax walba adduunka waa inaad halkaa gashataa. ilmuhu wuxuu dareemayaa naxariis saa'ida. naxariistaas waxay suurtagelinaysaa ilmuhu inuu dhaga iyo indha adigu aad u noqoto waalidka aan. waxaa kaleeto oo caqli iyo xikmada ay ku jirtaa ilmihii in la tusay asagoo 6 sano jira inuu ogaaday wixii maalintaas uu kasbado inuu beri helayo. marka ilmo 6 sano jira waxa uu bilaabayaa inuu ka fakero okay 6 sano jira aqligiisu wali waa yaryahay, laakiin if I wanna be haddaan rabo inaan millionaire noqdo ama aan rabo dhaqtar inaan noqdo ama aan rabo inaan noqdo muxaafidul qur'aan I have to inaan u shaqaysto because tilaabadii aan qaado ama actionkii aan sameeyo ayaan helayaa beri.
laakiin kuwaysta ma aha ilmihii asoo gurigiisa fadhiya inay uu yiraahdo hooyaday aabahay baa ii jooga oo uu aamino cuntadiisa iyo cabidiisa iyo quudkiisa iyo noloshiisa oo dhan dadkan inay ka faalo qaadeen oo uu yahay qof iska laclaca uu noqdo oo aabe iyo hooyo koris iska noqdo oo uusan mas'uuliyad dareemin oo uusan caqligiisu shaqayn uusan berri ka fekerin sabrina xasan abaay macaan iisoo dhawow farxiyo jubbaland abaay waa ku jeedaa inaa sheer garaysay aada u mahadsan tahay waa u jeedaa xasanaa ku diray laakiin dhib ma laha insha allah aad baa u mahadsan tahay xasan halkaanu kaa leeyahay waad waa u jeedaa maasha allah soo dhawaada kulligiin soo dhawaada casharkana ila wadaaga haddii uu yahay mid xigmad iyo caqli keenayo ama aad yani aad u aragtaan in maxay laga faa'iidayo taasna marka waa arrinta kaleeto arrinta kaloo ku jirta meesha waxaa waaye ilmuhu inay u baahan yihiin waalidku in time la qaato cunugii odaygii guriga hadduu gurigiisa uu ku haayo ilmuhu gurigiisaas keliya unbuu aqoonaya laakiin marka ilmaha banaanka loo saaro nolol kalu gelaya inta ay lugeynayeen odaygii cunug gacanta ayuu haayay laakiin ma halayn ma sheekeysanayn cunugu marka maskaxdiisa wuxuu helayaa waqti qabow oo uusan wax kale ka fakerin oo aabihii gacanta u haysto oo uu jacayl dareemayo oo uu dareemayo inuu maxay ahayd uu fiirinayo adduunka suu u shaqeeyo oo cirka uu fiirinayo oo dhulka fiirinayo oo geedaha fiirinayo oo buuraha fiirinayo oo webiyadii iyo baddii fiirinayo oo uu arkaayo adduunkan nolosha adduunkuba inaysan guriga labada albaab lagu xiro aysan hayni adduunku uu weyn yahay cirka markaad fiiriso waxaa laga yaabaa intaa cirka fiiriso oo indhahaagaad cirka ku fiiriso inaad aragto baaxadda cirka uu leegyahay markaad aragto baaxadda cirka uu leegyahay qalbigaaga maskaxdaada indhahaaga way furfurmayaan waxaad dareemaysaa cadamada iyo awoodda ilaahay ayaad dareemaysaa waxaad dareemaysaa culays badan inuu kaa tegay waxaad dareemaysaa adduunkan iyo waxaan aad ku daba ordayso inaysan qiimo lahayn ee ilaahay cirka intaa la eg sameeyey dhulka adigu markaad dhulka ku socoto dhulka weynaantiisa kuma muuqato inta aad maraysaa kuu muuqata laakiin markaad cirka aad joogto oo diyaarad saarantao dhulka soo fiiriso waxaad arkaysaa dhulka inta u leegyahay waxaad arkaysaa jidadkii waxaad arkaysaa tuulooyinkii nololkii waxaad arkaysaa adiga dhan waxaa noqonaysaa diqsi marka adoo dhulkii jooga aad marka cirka oo fiiriso ilmaha yarka marka waxa uu su-aala ayaa ku bilaamaya in asagoo dhulkii jooga uu cirka fiiriyo oo uu yiraahdo tas cirkaas u weyn yahay intuu la egyahay fagaantiisa balaarkiisa iguma soo dhacayo yaa iga haya waay igu soo dhixi waaye daruurta xaggee ka timid xidiguhu xaggee ka yimaadeen oo meesha waxaa ku yaala qoraxdu xaggee ka timid qoraxdu maxay u kulushahay mar maxay u qabowdahay yacni ilmaha maskaxdiisa waxa uu gelayaa fakar dheer iyo wonder iyo qalbigiisu inuu raadiyo oo uu waxaan dareemo oo uu darso oo maskaxdiisu ay furanto oo caqligiisa meel kasta oo maskaxda waxa ilmaha ay leeyihiin saddex qayb bay u kala baxdaa qaybta jeegada qaybta dhakada iyo qaybka fooda hore qaybta halkaa hoose waa difaac ilmuhu markay yar yihiin oo intaa la eg yihiin oo ay socod baradka yihiin difaac because waa aad ba daciif u yihiin way dhacayaan maanta dhan marka difaac buu ilmihii ku jiraa suusa u dhicin oo dhulka ugu dhicin oo lugiisa ay u adkaadaan oo maanta dhan saas u liglig leeyahay because caqliga waxaa shaqaynaysa marka qaybtaas wax kale laakiin ma shaqaynayaan oo adiga arkay ilmuhu intaan oo dhan waxay ka tahay god bay ka tahay waxa waa eber waa markaa taabato waxaa leedahay ilmaha maxaa meeshaan biyimaa uga jira aawo lafihi wixii xaggee aadeen because maskaxdii iskuma imaan laakiin halkaas jeegada ah nadiifo kaasan iisoo gal maasha allah khayr allah ku siiyo halkaa jeegada ah keliya ayay uga jirtaa maskaxdii dhan waytaa marka ilmihii waxaan difaac ahaynba kuma jiraan oo intaa waxay difaacayaan oo caqligooda iyo maskaxdooda ku dheehan waxa waaye si aysan u dhicin markay jiraan 10 sano ilaa 13 sano gaaraan maskaxda qaybta labaad ayaa ka mid noqota oo ah qaybta la yiraahdo attachmentiga iyo inay ilmuhu sameeyaan attachment waxa la yiraahdaa inay ilmuhu sameeyaan ilmuhu inay bartaan ilmuhu inay bartaan
حالة ده attachment وحواي feeling كود أما إن المو درين قار يشان أو أي ربان إن صاحب يشان أو والد إن والد كود يعني شعيل أي دريمان أو أي دريمان إن ددليين أو أي دريمان مصيرك أو المو وارت مرك أنت جيران الميك الأفراد تكسع كمصير يعني وحليهن كنا إفيريو ألعبت أنا أسكال عيد كلام الله أو يقطعون أو مسكحة ذو حاشقين قيبك أما attachment قيبتا المها سينيسا فردوس عدي يسودو أباي معان thank you so much وعليكم السلام فردوس وكوجي هذا معاني يسودو مركا قيبتا دفاعه قيبتا attachment أما قف المها يعني هوية كست هوية المهم ما كرو وحولاي هاي مسكحة دي سو حي بريسا والد كيس إنه دتك كتشعل هذا ولا ليه دتك إنه كتشعل هذا وحولاي هاي مرديسا تويجيسا وحتى من كرم له دتك لما أوكي سنة بيكوس عقلي يسو قيبتي كلا شقينس قيبت أقومهم مسمرك وقيبت إنتاس وقيبت عقلك أنت قفك مركب أبحث وأنا إلى وطني أفر سنة جرو وأنا قفكاس وياي مسكح دي سي عقلي سنين تام إنيهين قف وحكستا وح أورون إيه وح أورون إن جرانية وأردت قفك أفر إلى وهتنك السنة وجوه رئيس أيها وح سكول الذي إلى جامعة له قفك مركو آدم سكول أو كبحوا سدير طبعا وإلى هاي سكول كبحوا لحد سنة كنت وقيبتي جامعة ده لواتني أفر سنة مركو جرو قفكو أقونتي سؤال مسترنت هاي إن سكول كيسي قفك نصيب وهلا وهلا عقل كيسي وأودا مسترنت هاي مسكح كيسي وأودا مسترنت هاي قف كاس وحال هي وقف عقل له أو مسكح كيسا أي بوحدو لكن قفك لواتني أفر مركو أنتو كهوسيو عقل كيسو وهباء منبثق وكل درجة الريال لكن عقل كيسو ولي مبوحين راشنال بيدان قف إنه راشنال أو سمينايو مركا عنقي يراه مركا إلا لواتني أفر سنة كجارايو عقل كيسا وحاشقيني هذا الكأبي كويري هذا الكاس سنة بسنة كدن بيا معنا جارو سمينيا سنة بسنة كدن بيا معنا جارو سمينيا هادو إلا إرجي أبي ويري ونقضه وح ونقض راس مال المهاس أو أي يعني يكون بيز جريان نلا شغل أي نقطة نلا كومي سامن حكمة عقلي المها أو دلو المها أو سير لنا ويكتب عنيان أو يعني وحاس و يعني عقلي جاي مسكح ذاس أي كأحلين وكأحلي أبي وأويرنا يعني وحالتكو أمرك وكسر جيدا المها أنت عن لو سمين هذا دقن waxay tiri niyar intu tala ka boodo intu geed ka boodo tala ka booda aadi aad that's why dadka waalidiinta looga baahan yahay marka inay iyagu talada u hayaan oo kaliya inay u hayaan wariya ha sameyn ay dhahan ma aha waa inay ilmihii ay u dhiibaan taladii ayadoo duuduub ah oo iyaga ay dhahan waatana taladii bal adigu wax ka soo saar si ilmaha uu aqligiisa u shaqeeyo war diinta miyayna arkin diinta qofka marka uu ilaahay uu nabiga ku soo diray waa lagu tababaray عشر بالوسي أنت أقول دم وحا لغو برايي عدمada إلهي ayaa lagu baraayay tawxiidka ayaa lagu baraayay hadhowtiina waxa lagu baray nolosha iyo wacyiga sida loo noolaado waatii nabigu markuu madiina u soo qaxay calayhi salaatu wasalaam dadka walaaltinimada in yani ansaar watii soo dhaweysay oo walaaltinimada iyo xaq dadku isku leeyihiin iyo inay xataa naagahoodii isu fureen oo dhaheen laban qabaay adiguna taa guurso cuntadii isla cuneen meeshii isla degeen walaalo noqdeen inta marka waxa way noloshii bay'adu inay nolosha nolol wanaagsan dadku ay ku noolaadaan oo dadku ay wada shaqeeyaan inta hore laakiin qofku waxba la barayaa marka ilmaha yarka 24 inta ka horeysa waxa waajib saaran yahay dadka waalidiinta ah inay fahmaan in loo baahan ilmahan si ka duwan sidii hore ilmaha in wax loo baro oo aqligooda iyo maskaxdooda loo dhiso oo qofku uu ka shaqaysiiyo waalidka in uu soo qato bugaagta ka hadla ilmaha iyo qaabka noloshooda ay u shaqeyso qaabka maskaxdooda ay u shaqeyso hadii xataa uu qofku wax akhri karin fiidiyoyo inuu raadsado inuu diintu waxay ka tiri u raadsado inuu nabi maxamed wax uu ku tababar jiray u raadiyo inuu qofku helo way uu ka duwan ma aha Soomaalida dhan isku si inay u nool yihiin oo guri kasta si looga nool yahay gabdhihii sadadka hadda anagu Mareykan aanu joogno 3 qol 2 qol ayaa waxa lagu hayaa 4 5 6 cunug ayaa lagu hayaa dadkii inta la eegaayo meesha lagu hayay
albaabadii waa u xiran yihiin iribka kama baxayaan banaan ma arkayaan hawow ma arkayaan gabadhii 10kii guriga ay ku haysay maskaxdeedu way wareersan tahay afarta dhinacay u kala yaacaysaa marba midka alla cunugu yuusan darbiga ka dhicin kan yuusan daaqada ka dhicin kan yuusan banaanka aadin hadday meel aado yaan uga tagaa waa layga qaadanayaa baloo dhan bay ku jirtaa qofka marka ayada dhanba shucuurteedu way kacsan tahay miba heesaba waqti iyo maskax degan oo ilmihii ay chance u hesho ay wax ku magaciisiiso laakiin dadka anagu hadda aan la noolnahay waxyaalaha cajiibka u baahan in laga barto waxa waaye magaaladaad aadaysaa Soomaali gabar ah ayaa soo galaysa 3 cunug way warataa gabar kale oo cadaan ama wadankan dadka ugu nimid soo galayso oo ayaduna 3 kale warata ayaa soo galaysa markay meeshii soo galaan ilmihii cadaanka nin walba wuxuu haystaa toy iyo buug yar ah meeshii hooyada fadhiday fariisanayaan juq ma dhahayaan ilmihii Soomaalida xataa hadii la fariisiyay ma fadhin karaan dabada inay cunaysaa muddo saas u badboodayaan maanta dhan laba fariisin karo waa yaacayaan way hadlayaan xaqi ku boodayaan ilmihii u tagayaan laamiga u cararayaan musqushaan rabnaa biyaan rabnaa dhibaato waa ka yaabay waxaas oo dhan marka waxa keenaya qofku markii maskaxdiisu aysan deganayn oo ilmuhu uu yar yahay oo aqligiisu uu yar yahay difaac buu ku jiraa difaacaas uu ku jiro hadii adigii maskaxdii qaybtii difaaca bis shaqeynaysa qaybtaas hadii intaad adigu cunugii loo baahnaa markuu damco inuu dhacaba aad si degan u qaban lahayd aad jacayl tusileed aad wanaag tusileed qalbigiisa uu degi lahaa ayaa waxaad samaynaysaa markuu cunugu 2 jeer intuu kaco uu ama ku faa magaciisiyo aad dhahdo waa tababaraya qaranka isoo qabo waryaa gacanta way ku dhufatay dabka ha isoo qabo bakeet tarmuus kulul isoo qabo gacanta u saar uu baranaya ilmihii waligi qalbigiisu waxa ku jiraya difaac iyo dagaal iyo wixii u soo dhawaada waxay u maleynayaan inay wax ku dhufanayaan inay gubayaan ay u maleynayaan weligood ilmaha marka maskaxda qaybtii kale to loogu talagalay inay samayso attachment weligeed ma samaynayso ilmaha marka waxa lid ku ah oo ka soo horjeeda in la helo inay yani ilmihii aysan helinin maskaxdooda aysan helinin chance ay ku kala korto aysan helinin dhacaamada ilaahay maskaxda markaad fiiriso boqolaal fiil ayaa marta fiil kastana meel bay aadaa intaasoo fiil kastaba waxa waaye waa inay heshaa dhacaamo wanaagsan oo qofka aqligiisa iyo maskaxdiisa sidii loogu talagalay tii araga iyo tii uriska iyo tii dhagaha iyo tii maxay ahayd deganaanta iyo tii fikirka iyo tii aqliga mid kasta meesheedii waa inay heshaa dhacaamadii loogu talagalay laakiin cunuga hadii uusan helinin waxa ku dhacaya in cunugaas uu maskaxdiisu ay sii dayso dhacaamo lid ku ah oo markii cunugii uu dharbaaxa lagu dhufto oo dagaal uu ku jiro oo baqayo oo kan uu sameynayo maskaxdiisu waxay sii daynaysaa dhacaamadii difaac meeshii ka sii dayn lahayd dhacaamadii soo saar lahaa maskaxda qaybta kale marka waxaa arkaysaa 24 jir kaa weyn kaa xoog badan laakiin markaad u fiirsato aad leedahay qofkan maxaa ka qada xagu ka soo baxay maba helin maskaxdiisu dhamaystir qofkii marka loogu talagal 24 inuu ku dhamaystirmo 40 ku dhamaystirmaayo amaba 40 kuma dhamaystirmaayeen maskaxdu waxay samaysaa wax la yiraahdo browninka waxa waaye 15 qofku markuu u gaaro maskaxdu way ishaandhaysaa waxay samaysaa markay ishaandhayso waxay ka soo saartaa maskaxda waxay daarisaa oo iska daarisaa neuronadii iyo maskaxda wixii loogu talagalay qaybihii aysan maskaxda u isticmaalin ayay daarisaa qofka markii ilmaha markii uu yar yahay iskuulada gaalada iyo meelaha markii ilmaha la geeyo waxay baraan sheeko ilmuhu inuu sheekeeyo sheekadaas ilmaha waxay u furfuraysaa caqliga waxay baraan ilmuhu inuu ciyaaro keligii inuu ciyaarana maaha inuu ilmihii kale la ciyaaro taas waxay sahlaysaa inuu hab dhaqanka dadka iyo sidii dadku isu dhexgalaan uu sameeyo xoogna u yeesho hadhow ilmaha ay ka ilmo badan yihiin oo ka saaxiibo badan yihiin oo ka orod badan yihiin oo ka ciyaar badan yihiin way ka fariidsan yihiin ilmo laakiin sidii cuq loogu haayay oo loo magaciiseynayay cuni kastoo soo agmar wuxuu umaleynaya inuu asaga wax ka qaadanayo kii hooyadii oo arko inay hag siinayso wuxuu umaleynaya asaga inaan la jeclayn cuqdad iyo isku kalsooni la-aan ilmihii iskuma kalsoonaanayaan
iyo aqoontiisii oo yaraanaysa because damiirtiisii iyo caqligiisii iskuma kalsoona. ilmuhu markay isku kalsoon yihiin way qab weyn yihiin, waxay aaminsan yihiin wax kasta inay qabsan karaan. laakiin ilmihii markay isku kalsoonayn wax kasta way ka baqayaan, waxay ka baqayaan haddii ay hadlaan ama lagu qoslaa ilaan iskuma kalsoona. casharka markii macalinku su-aalaha wax weydiiyo wuxuu dhahaa haddii aan ka jawaabo amaan khaldamaa. ilmihii weligii iyo aalihii wuxuu ku jiraa xarg buu ku jiraa, sababtoo ah maskaxda qeybtii kaleeto ayaa xiran. marka 24 jirada meelahan dabada suuladu ka dhacayaana taagtaagan dee maskaxdooda qeybta loogu talagalay inay hagtaa maqan, oo runta ma isku sheegno qeybtaasaa maqan. marka qisadaas runtii waxyaalo badan ayaa iiga baxay oo ah qofka waalidka ahi tilaabada ilmaha ay ku sugan yihiin, casharka uu siinaayo inuu yahay waqtigaas ilmuhu mid qaadan karaa. ilmo gubtay oo shaah aad ku dhajisay oo tiri wuu baranayaa. ilmo waxaa arkaysaa qaadadii abartu baa sida ay ku karinaysay ay dhag ku siisay oo qaadadii sidooday ku dhegto laga wada qaatay because ayadu ilmaheeda ma necbana, adduunka ilmaheeda ugu jecesha, laakiin qaabkiibaa ka maqan. ilmihii markii uu gubto kow wuu xanuunsanayaa, labo meeshii nabar bay ku noqon, 4 saac markuu nabarka arko wuxuu leeyahay hooyadaa way gubtay, hobartiibuu cadow u qaadaya bal adigu wuxuu barta iska dhaafay. marka ilmuhu wacyiga ku sulan yahay, hadduu faraxsan yahay, hadduu hurdo ka soo kacay, hadduu dharagsan yahay, hadduu caafimaad qabo, waqtiyada loogu talagala ilmuhu wax badan bay kaa baranayaan. marka walaashay hodan waxay tiri ilmaha siduu waalidku u maqli karaa. ilmaha waalidku wuxuu maqli karaa waalidku markuu ilmaha maqlo. waa inaad qofkan waa human being caqli leh oo wax fahmaya oo su-aal qaba oo yani waa in aadan u arkin qof wax yani adigu aadan u arkin aad meesha u leexsi iska aadaya. ilmuhu waa fikiraya, caqli buu barar badan waxaa laga yaabaa inay ilmuhu kaa baqaanaysan kuu sheegin, laakiin maanta ilmo 13 sano jira waxaa laga yaabaa adduunku waxa ka socda caalamka dhan wuu la socdaa. computerku waa kaa badiyaa, muxuu ahaa buugta aadan weliga arkin buu akhristaa, wax kasta waa kaa badiyaa. haddii marka adigu inta fariisato ilmahaaga aadan dhihin hooyo qalbigayga iyo niyaddeeda iyo dhagayga maanta adaa iskale oodan dhagaysan, marar badan markaad dhagaysato waxaa arkaysaa waxyaalo badan oo ilmuhu ay kaala baqi jireen ayayna si u helayaan inaad yani ay kaa dhageystaan, inay yani kuu sheegaan. marka anigu waxaa samaynaysaa waad dhagaysanaysaa. waxyaalo badan oo marka qaladaad badan hadday kuu sheegaan meel baad ku qoranaysaa, markaas kama hor imaanaysid, waad dhagaysanaysaa, waad ka tegaysaa, sheekadiisii waa la jiibinaysaa oo uga dhaqaaqaysaa. wixii aad qortay ee ahaa qaladaadkii waqti tan ka munaasabsan oo sheekadiisiiba aadan soo qaadaynin qaab kale aad u fahansiinaysid ayaad u yeelaysaa. qofka waalidka marka waxaa saaran mas-uuliyad weyn baa saaran. war inaa 1 iyo 2 inta dhasho diinta barto oo akhlaaqda barto ood ka soo saarto ilmo ayaguna wax isku taraya, waalidkood wax taraya, mujtamacna wax taraya ka soo saarto, iyo inaad sanad kasta dhasho wada fadaqiin aan waxna maqlayn oo wada gubtay oo qeyladii ka badatay oo aan lahayn akhlaaq oo beri ku guba adiga aad dhasho. war laba inaad dhashaa ku qeyb badan. ilmaha in la kala joojiyo ma banaana, ilmaha in la kala fogeeyo ma banaana, yani waxaas dhan dad way dhahaan. laakiin markaad qol yara aad 8 ilmo ku gurtay ya 8daas ilmo qaylo iyo samxad iyo huduu iyo deganaan la-aan iyo labadii qof oo isku wareera iyo ilmihii oo suuqa ka baxa iyo adigiyo tabarteedii ay awoodi weydo baloo dhan baa madax la gelisaa. waxaa dhacaysa marka inaad xaqaagii inaad kasoo bixi weydo, koodii kasoo bixi weydo, tarbiyadooda kasoo bixi weydo, gurigaagu saa ku dumo, ilmahaaga isaa ku kala baaba-aan, yowmal qiyaamana lagu weydiinaya dee waxaa tabartaada een baad madaxa gashatay. realitiga waa inaan isku sheegnaa, caqligu waa inuu shaqeeyaa. okay, soomaali waxaad tiraahdaa hadal badan haan ma buuxsho. casharka maxaa idinkaga baxay?
it's your time. آمين. إله نوع حفتي عرورته صبرين وحيت العرورت الله نوع حفتي إلا كلا كوريا إلما هدين تينا جديسي ما شاء الله وصحوي ولا الله إن نورا باي معن سودو ما شاء الله إن أي وأكو فرح سنة هاي إن هذا الكيك وصل نقولين تيلا يدا هور بعد ضروري يسوع أذي بعد درين كلاي أنا ودني مكلاي بيتسوق قارت شكلاس هور بعد ضروري يسوع أذي بعد درين كلاي أنا ودني مكلاي هور ويل ويل سائدة أو ميل فريدة أيا وحشكتي أو وحشكتي أو وحشكتي ولا مقلب واجد دجالة درويشتي واي هورتي واحد جيستي ويد ولا جيسون واي مركل دجيسون واي ayay marka habartu marka waxay aragtay col guriga meel u dhow jooga oo raba reerki inay soo ataagaan marka way la hadlashay reerki dadkii la hadlashay waa la dhageysan waayay markii la dhageysan waayay bay waxay tiri habar baa darooriyayso yani habar iska qaylinaysa maanta dhan iyo oday dareen galay oo waxba soo socdo ku haya anigu danay ma kale yani dan kama lihid kulay laakiin xerada col baa jooga danka ma lihide xerada col baa jooga marka taas waxa waaye wixii aan idin sheegay haddii uu yahay waxa ku faa'iideen walaaliin la qaybsada 100 qof oo waxaa laga yaabaa maantay nadiifa axmed wax badan oo naga hoosaasonaaba daah nooga qaaday thank you macaaney I hope in dad badan saas ay u fahmeen insha allah maadaama hadda wax su-aale iyo kulli waa fiirinoyaa dad yani badan waa ku jiraa laakiin I don't see any su-aale iyo muujeedi waxaan kusoo gabagabeynayaa insha allah next time aan isku soo noqonaynaa casharkaasna waxa waaye sii dhageysta sii gudbiya faafiya walaalihiin yani la shargareeya يعني مسؤولية قارنا وين وضع صارن تهاي قفل بوحة أوليه أما المودلي أما ولالو ليه هاي أما وحو ليه هاي درس بوليه هاي قراب وليه هاي المبضن باجرات بدن بصوماليا المود ملا كل بينين وحارك يسافر من بدن المها ظروف أكيسة المي صومالي مل بيكو بابسيين وحيالا بدن وحا أبا وحا اللوبة هي إن لهلو ضد كسمية baaritaan ku sameeya darsa fahma dhibaatooyinka haysta qoysaska dhibaatooyinka haysta ilmaha waxyaalahaas oo dhan u suurta galiya inay u bayaaniyaan dadka wixii aan yani haysan macluumaadkaas haysan inay u bayaaniyaan anigu kolay dee xigmad badan iyo caqli badan iyo cilmi badan oo idin dheerahay ma jiro laakiin waxaan iska jeclahay inaan aynu wada sheekaysano marka waynu sheekaysanaynaye عشرة كل نص بدي إن شاء الله وهذه أنا قاعد بجعله كفائدة runtii markasta oo ama sheekso kala sheekada aan soo aqristo maskaxda ka shaqeysiya waxyaalo badan aan isbarbardhiga waxyaalo badan aan arkaa waxyaalo badan ay baxa marka runtii waa wax naftayda u baahan tahay aqligayga maskaxdeeda inay ku qoraan u baahan yihiin ina idala shargareeyana kulli ani faa'iidana igu jidho oo aan helo dad badan oo walaalaheeyo hadhow markaan banaanka u baxo wax badan aan ku kala faa'iidi karno oo ayagu waxyaalo badan yani aan saaxiibo badan aan yeelanayo oo tomorrow ka maalin yani aanu saaxiibanahay oo walaalanahay oo wax kala faa'iideysano oo wax kala barano oo xikmadaha isku kordhino marka all of that insha Allah and that's what it is and that's what I have and wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaantiin I love you for the sake of Allah and khayr iyo janna idin rajeynaya ducada waa xaqiina wixii aan saxay ilaahay xaqiisay ka ahaadeen wixii aan qaldo waa nafteedii iyo shaydaan ilaahay baan cafi ka weydiisanaya dhammaan walaalaha meesha ku jira haddii ay jiraan shakhsiyaad hadalkayga dhabsaday ama si qaldan inaa u hadla dareemay ama yani ogaada this is all of us waa waxaan isku maxaa la dhahaa
waa wacyigelis nafteedoo kaleetaan u sheegayaa dhammaantiin khayr baa idin rajeynaya insha allah wiigii mar ama labo waa ifilanaysaan insha allah kusoo xirma bogaan Saciido Shaaciye page share gareeya like gareeya frankiina u dira casharo badan iyo videoyo badan iyo program badan ayaan soo gelin doonaa anytime oo aan free ah ama firaaqo helo I will try my best inaan waxyaalo dadka wax u taraya aan la soo wadaago marka dee khayr baa idin rajeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.